السلام عليكم soo dhawaada saaxiibada YouTube haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo boqoto channelka noo saar subscribe naftayda gacalo ogolow inaad isbiimayso ogolow inaad halista aad u bareedho khalad waad samayn doontaa kulliba oo taas la iskama ilaalin karo laakiin khaladaadkaaga wax ka baro ogolow inaad noolaato ogolow inaad xor noqoto waxna ha uga walaacin ama ha iska dayn inaad keligay ka baqayso guuldarrada ama inuu qofku haweyn uu kugu hungoobo qofka qoor ee ay tahay inaad farxad gelisaa waa isla naftaada ee raadi farxadaas oo hel hadafkaaga nololeed saaxiibo fiican samayso inta aad ku jirtay safarkaaga saaxiibo aad wax wada qabsataan jeclow qofka aad tahay dadka oo dhan jeclow hal qof aad rabto in aad noqoto casharada aad nolosha aad la kulantana tixgelin weyn si nasiib wanaagsan naftayday gacalo waa in aad barataa sida naftaada loo jeclaado ka hor inta aadan cid kale jeclaan naftayday gacalo in lagu diidaa waa wax xanuun badan sidaas darteed dib ma lahan inaad xanuun dareento annaguna mar walba garabkaaga ayaan nahay xanuun kasta garabkaaga ayaan ahay naftayday waxaad u qalantaa naftayday oo noqo mucjiso mar la arag ah naftayday gacalo dadka qaar uma soo galaan noloshaada in ay jeclaadaan ee waxa ay ugu soo biiraan inay kugu danaystaan kuma arkaan qof ee waxa ay ku arkaan fursad sidaas darteed wax caawimaad ah kuma fidiyaan si kasta oo aad adigu u caawiso jooji inaad dhinacyada aad ka xigto dadka ayaga dhinacyadooda kugu baneeyay waan ogahay inaad moodayso garab istaag in aad u baahan tahay laakiin dhab ahaantii uma baahnid garab istaag in caawimaad la'aantoodu kaa dhigin mid aaminaad bax dadka oo dhan ka agdhowow dadka ku doonaya inay ku caawiyaan sida aad u horumariso noloshaada kana fogow kuwa kugu soo dhowaanaya si ay kugu horumarsadaan noloshooda waan fahmayaa oo wax aad odhan doontaa yaa i caawin doona hadda dad badan ayaa diyaar u ah inay garabkaaga istaagaan sidaas darteed kuwa aan rabin inay garabkaaga istaagaan ayaan kaa qarin kuwaas hadalkaygana aan caddeeye marnabaha ka qoobamayn in aad xiriirka u jarto qof asagu kallifay goynta xiriirkaas jacaylkayga ayaa kula jira mar kasta naftayday ha samayn wax kasta oo aad hadhow ka qoomamayn doonto naftayday gacalo xorriyaddu waa mid ka mid ah nimcooyinka quruxda badan ee Ilaahay ina ku ammaansaday waxa aynu nahay waxaynu dareemayno xor ayaynu u nahay waxa aynu odhanayno sidoo kale xor ayaynu u nahay wax walba oo aynu samaynayno waa run in mararka qaar ay noloshu ina ku khasbi karto duruufo adag sidaas oo ay tahay xor ayaan u nahay sida aynu uga falcelinayno duruufahaas hadda firin xornimadaada qadarka iyo maamuuska maalin kasta adeegso oo ka faa'iideyso xusuusnow xor inaad tahay abuuridda qaabka nololeed ee aad weligaaba u hamin jirtay doorashooyinkaaga aad mar kasta lahayd sidaas darteed ku buuxi nolosha dabacsanaan wanaag madadaalo farxad iyo xasilooni dhoolcadayn jacayl iyo wax kasta oo wanaagsan waxa aan rajaynayaa inaad xornimo ku noolaato si waaya aragnimo leh aad wax u doorato si deeqsinimo leh wanaagyada ula qaybsato dadka kale wanaagyada ay noloshu kugu deeqdana waxa aan rajaynayaa inaad xorriyadaada uga faa'iideysato inaad kaga dhigto noloshaada gaarka ah mid adiga iyo dunida kaleba idin anfacda xaq ayaad u leedahay xornimada naftayday waan ogahay culayskan oo dhan inuu yahay mid ku meel gaar ah qalbigaygow gacale raaligelin ha ka bixin inaad dareemayso dareen gaar ah ama aad dareemayso dareemo badan xaq ayaad u leedahay inaad dareento wax kasta oo aad rabto waan ku jeclahay mar walba dhib ma lahan inaad keligaa noqotid xilliyada qaar waayo kelinimadu mararka qaar waxa ay ku siisaa awood iyo geesinimo